xafladan heerkeedu sareeyay ayaa salka ku haysay taageero loo muujinayay musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Cawke oo u tartamaya kursiga 104 ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda Soomaaliya kaasoo deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Tawfiiq ee Puntland. Casho sharaftan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Karkaar, dhalinyarada magaalada, haween aqoon-yahan siyaasiyiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn Ciise Muuse Jaamac Xayaato ayaa madasha ka hadlay waxuuna sharaxay taariikh nololeedka musharax Maxamed Axmed Cawke. marka xiga Maxamed Axmed Cawke oo taagan xildhibaan aqalka hoose ee lambarkiisu yahay 104 oo ku fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Axmed Cawke waa nin rugcada ah, waa nin kana soo jeedaanka Puntland gaar ahaan Qardho, gurihiisa iyo guriyahooda waxay ku yaalaan magaalada Qardho. waxa adeerkiisa la xamiyaa baari aadan oo qof walba ay garanayso. waa nin deegaanka ah, waa nin wax yaqaan, waa nin aqoon-yahan ah, waa nin muddo ku soo shaqeeyay siyaasaddan ku soo dhex jiray. wuxuu u taagay kursigan, wuxuu rabaa inuu wax ka bedelo. waxaan rabnaa isbedelka cusub sanadka 2021 aqalka hoose inuu la yimaado. Maxamed Axmed Cawke haddii dib uu noqdo waa nin aqoon-yahan ah, waana qurbaawi, wuxuu degan yahay Ingiriiska. waa nin aqoon-yahan ah, waa nin aad u idin kala bileeyahay wax badan oo xoogaal ah. wuxuu u soo istaagay kursigan aqalka hoose ee federaalka Soomaaliya tirsigiisu yahay 104. wuxuuna u socdaa dadkiisa deegaanka Puntland. kursigan dhawaan waxa la geeyay Dhuusamareeb, hadalkeen meel ka soo la geeyay waa loogu daba tagayaa. laakiin waxaan rabnaa inaan muujino in dadka deegaanka ah ee kursigan leeyihiin lagana leeyahay Puntland. Puntland kursigan uu leeyahay si kastaba ha u baalkeeyo. marka waxaan rabnaa inaan la soo dhaweysaan isaga ka hadli doona ajendihiisa iyo qorshaha habku wuxuu wado guud ahaan marti sharafta ah. wuxuuna hadda u soo maray magaalada Boosaaso, wuxuuna sii gudbay Garowe ilaa Gaalkacyo, waa maraya dhulka Puntland waa maraya isagoo rabay siyaasadiisa iyo hab dhaqankiisa iyo hab doorasheedkiisa inuu u gudbiyo dadka bulshada uu matalo way. qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay musharaxa, waxayna sheegeen inuu yahay shakhsi ku habboon una qalma inuu matalo degmada Tawfiiq ee Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. soo dhaweynta xildhibaanka aqalka hoose dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Cawke waa soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan annagoo leh oo weliba codsi ku darayno dadka la wadaaga ama taladooda ka gooda kursigaasi inaysan kula tartamin oo weliba ay u tanasulaan aan jecelnahay annagoo ku kalsoon taariikhdiisa laga sheekeeyay. kursigan ku loolomay waa xildhibaan laakiin muddo badan buu soo shaqeeyay. waxaan leenahay nasoo marakan markaagi maaha dadka kale jaanisi si ay dadka dhalinyarada ay u helaan waqtigooda insha Allah tacaala. musharax xildhibaanka waxaan kula dardaarmaynaa maanta sidaan kuu soo dhaweynay oo farxadda iyo reereynta leh in insha Allah tacaala haddii Ilaahay qadaro markii aad xilkan ku guuleysato aad dib noogu soo noqoto. waxaan rajaynaynaa bahda uu sida khaaska ah kursigan uu quseeyo sidii walaalkay haday halkan ka sheegay inaydan kula tartameyn inaad doorkan isaga siisaanin idinku anaga codsiga ee tixgelinaya intaas aan oran lahaa. unoo halgamayaayo waa lagu halayn karaa hadalka isku raaca idinkoo aan kala hambayn ahubsada oo Maxamed codsigaasi ha u hirgalo. adigana bulshadu waa bulshadaadii, degmadu waa degmadaadii, dadkuna waa dadkaagii. waxaan insha Allah 100% ku kalsoonahay in aad matalaad dhaba si dhaba noo matali doontid insha Allah. waxaan aqoon-yahanada anagu rajaynaynaa in qof noocaas oo kala Maxamed Axmed kala inaan geysano. hadda magacuna waa isbedeli doonaa Cawke iyo waxa isbedeli doonaa Cawd. marka waxaan leenahay ustaad Maxamed Axmed Cawke insha Allah waxaan kugu sii daraynaa anagu duco. musharax Maxamed Axmed Cawke oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay inuu kursigan hadduu ku guuleysto uu wax weyn u qaban doono ummadda Soomaaliyeed. kursigan waa kursi Puntland laga leeyahay oo deegaan doorashadiisu tahay Tawfiiq. waqti badan ayuu ninka mahad gudoomiyaha ku fadhiyay 20 sano, qofna ma uusan wax tarin, degmadana waxba umuusan tarin. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah annagoo kaashaneen reer Puntland, kaashaneeno deegaankeena, kaashaneena wax walbo in aan gacanaha iswada qabsano
qorshahana ka bedelno dadka xuquuqda ka maqanna aan u soo dhicino. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar Cabdicasiis Yuusuf Caamir ayaa munaasabada soo gabagabeeyay wuxuuna xusay waxa ka maqraanti furay Maxamed Axmed Cawke inuu kursiga reer Puntland leeyahay dogaan doorashadiisa kursiguna kursi Soomaaliyeed yahay waa maqraanti furtaan leenahay cawadna waxaan leenahay adiguna nasiibkaaga qabtay kursiga hore dogaan doorashadiisa keen oo reer Puntland keen isaga intaasaan hawada u marinayna ilaahay doorasho khayr qabta nooga dhig xildhibaano tayo leh oo Soomaaliya 30 sano burbursanay tayo samata bixiya Allah ka soo saaro. Saciid Muumin Axmed warbaahinta dawladda Puntland magaalada Qardho.